أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام جودوا يجود الله بالإنعام أنا طالب. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد maanta oo maalin arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad 2022 waafaqsanna 8 Rajab 1443 waxaa inoo socday tartankii sanadusyeedka ahaa 2021-2022 waxaana maanta tartamaya labada fasal ee kala ah fasalka koorso iyo fasalka shanaad haddaan u yeero ardayda u kala tartamaysa labada fasal aan ku horeeyo fasalka koorso waxaa u tartamaya anfac cabduqaadir xasan ayuub shahaad maxamed cabdikaafi xuseen aadan cayni xuseen yuusuf ikhlaas axmed jimcaale maxamed cabdulaahi khaliif sundus cabdirasaaq faarax fasalka dhigooda fasalka shanaad waxaa u tartamaya ayagana aadan diyaad cali axmed faarax cali aayah maxamuud meeris caaisha cabduqaadir maxamed muxsino saalim cabdalle saalim maxamed cali raxma cali isxaaq kuwaas waxay ahaayeen magacyada ardayda u kala tartamaysa labada fasal insha Allah waxaan u gudbaynaa qaybihii kale laba arday soo kala dirsadaan si lambarka qurutuurka ku xusan ay u qabtaan ardayda labada lambar la qabsanayo waxaa waaye waa 11 iyo 12 بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحسن السالم أو كم تحت ترتمياش أو ترتمي فصل كشنات نمبركا قبسل إنه واتبن يلبو. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ويا محمد أمين عبد الله خليف أو كنص فصل كورسو نمبركا قبسل كويت. بسم الله lambarka qortuurka loo astay waa lambarka 11 ujeedaan waxaana qabsaday fasalka koorso hadduu ilaahay raayigana su'aalaha lagu bilaabi doonaa insha Allah waxaan u gudbaynaa qaybihii kale ku xusnaa maadooyinka lambarada fasalka koorso qalin waraaq diyaarsada insha Allah الذي سينير لي إظلام 217 220 224 226 228 229 230 231 waxaan filayaa inaad qorateen fasalka shanaad qalin waraaq diyaarsada insha Allah 235 237 239 241 243 245 247 249 251 waxaan filayaa inaad qorateen insha Allah والأقلام وإلى صرير كتابة ay fasalka koorso arday soo dirsan lambarkan ay qabto insha Allah بسم الله ويعي وعد فاهم كيس هذا الكورس لأنه حقبستنا لبكر الله بقلتن تضاف fasalka koorso lambarkay qabsadeen waxaa ku xusan maadada sayniska su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan sheeg astaamaha beribiyoodka haddii mar labaad aan ku celiyo su-aashu waa su-aal saynisa waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg astaamaha beribiyoodka haddii mar saddexaad aan ku celiyo su-aashu waa su-aal saynis ah waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg astaamaha beribiyoodka waxaan fiilaya inay fahanteen oo aad ka waceli doontaan insha Allah
istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada jahligiyo saboolkana tirtira tacabna soo saarta ubadkana tacliintiyo cilmiga toosu wada geeya istabaabushayn iyo midnimo idinka oo taagay oo wada jirtaam yeelayoo tirka u adkeeyey ku tallama inaad tiigsataan horumar taariikh leh ku tashada inaad tiigsataan horumar taariikh leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo magacayga cayni xuseen oo ka socda fasalka koors. su-aashaas haddaad isku dayo berbiyoodku noloshiisa hore wuxuu kusoo qaatay biyaha, noloshiisa dambena wuxuu ku qaadanayaa beriga. berbiyoodku noloshiisa hore wuxuu kusoo qaatay biyaha, noloshiisa dambena wuxuu ku qaatay beriga. fasalka koorso su-aashii la weydiiyey ahayd su-aal saynis aan u dhacaysay sheeg astaamaha berbiyoodka. haddaba jawaabta ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn. jawaabta oo saxan waxay noqonaysaa astaamaha berbiyoodka. kow, berbiyoodka waxa uu leeyahay lafdhabar. berbiyoodka biyaha iyo beriga ayuu ku nool yahay. berbiyoodka ukun ayuu dhalaa. saddexdaas astaan ayuu leeyahay berbiyoodka. waxaan filayaa inaa fahantay. fasalka shanaad arday soo dhisan lamarka inay qabto. anigoo magacay axmed faarax cali waxaan dooranaynaa 265. بسم الله فصل كشنات لمبر كي قبسدا وحكو حسن مادة تربية الإسلامية. سؤال وحول على صيغة اذكر معاني هذه الكلمات: ويل، رحيق، مرقوم، تصنيم، يتغامزون. مرلبات أنكو علي فصل كشنات لمبر كي قبسدا وحكو حسن مادة تربية الإسلامية. سؤال وحول على صيغة اذكر معاني هذه الكلمات: ويل، رحيق، مرقوم، تصنيم، يتغامزون. بس ده حدا كوعي فصل كشنال لمبر كي قبسنا وحكو حسن مادة تربية الإسلامية. سؤال واصلة اذكر معاني هذه الكلمات: ويل، رحيق، مرقوم، تصنيم، يتغامزون. حافلة inaad faateen kana falcel doontaan insha Allah. taariikh abwaan hore tirsha waxay tilmaamaysay taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu kali taagan tahay taar ma goyseene. tartanka adduunyada socdeen iniba meel tiigsan tallaabada si aad ula heshaan dunidan tooraysay dadkaygo wixii kala tagiyo toos xundhaalinaya ka toosmaystahoo taxadaro meel iskaga tuura istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada. ويل، عذاب عظيم، رحيق، تراب القالس، مرقوم، واضح الكتاب، يتقامزون يشيرون بأعينهم، تصنيم عين في الجنة. فصل كشنات سؤال لوديه تربية الإسلامية. جوابتك بحيان ومن صحة. سينيرني إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. الله سبحانه وتعالى ما تسكله oo saake tartankiis waxnimo inoo bilowday qaybtiisa hore inoo dhameeyey. insha Allah waxaan sheegi doonaa dhibcaha qaybaha hore labada fasal ay kala keensadeen. haddaan ku horeeyo fasalka koorso waxaa la weydiiyey 4 su'aal la weydiiyey. 4 su'aal la weydiiyey 2 ka mid ay saxeen 2 ka midana way qaldeen. meeshaasna waxay ku haystaan dhibco ah 4 dhibcood. halka dhigooda fasalka shanaad la weydiiyey 4 su'aal. 4 su'aal la weydiiyey 3 ka mid ay saxeen 1 ka mid ay qaldeen. meeshaasna dhibco waxay ku haystaan 6 dhibcood. insha Allah waxaan u sii gudbaynaa qaybihii dhaxtaalka oo ugu horeeyo
fasalada sida u kala codeeyeen iyo sida loo kala taageeray insha allah dhegeysanayna waana daawanayna insha allah تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحسن السالم عبد الله وكم تحت ترتمياشة وترتمية فصل كشنات maanta oo ah maalin Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha 2022 waxaan halkan kula tartamaynaa dariska xalaashi ama fasalka dariskeena ah oo lagu magacaabo fasalka koorso hadda ka badna waariyadeena oo rumowday hadda ayaga naga badiyaan waa walaalaheena waan ula farxaynaa waan u hambalyeynaa guushoodana waa guusheena farxadoodana waa farxadeena منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعي فرتون محمود أحمد كنسو عد جلاس بوريس وحال كان كل تمنا ولا لين السناد هدي نقول نقول علينا هذا نقول سنة واستاك فرحتنا كورس قولوا عن شارك أخاك الأجر في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود بسم الله أنيقو مقعيك حبيبي علي أحمد وكسعد فصل كافرات انتو waxaa ku tartamo fasalada kala ah janaadii koorso anagoo isku ducodkeen waxaa siinay shanaad guul wacan فجر جميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا بسم الله مقعيك محمد حسين أحمد أنا قصعد فصل لحد مادة 4 ميشن waxaa ku tartami doonaa fasalka shanaad iyo fasalka koorso anagoo codka isku duwan waxaa siinayna fasalka shanaad بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جود يجود بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعي حلو محمد كسعة فصلك تدوال ما أنت هالكان waxaa ku tartami doona fasalada kala fasalka koorsi shanaad waxaa anaka isku duwan codkeena siinayna fasalka shanaad guul المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآم فاسلك طريق المصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قاعد أحلي عبد الرحمن محمود أو دكتور فصلك سدياد فصلك شنادي كورسو عن فصلك كورسو أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي بسم الله مقعي واصل عمر محمد oo ka socota fasalka 8 b maanta halkan ku tartamay fasalka shanaad iyo fasal koorso anagu isku dum waxa codkana siinaa fasal koors guul wacan تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم بسم الله أنيقو مقعيق أنفع أحمد كان السعودة فسق السقالات waxaa meeshan ku tartamaya fasal koorso iyo fasal shanaad waxaana codeen anagoo isku duuban fasal koorso guul wacan العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جود يجود الله بسم الله ميجي وعفران عبد الشيخ علي كان صدق فصل كتوانات ما دوحنا كنت تمام فصل كورسو فصل شناد أنا وصدوم محتاجين فصل كورسو قول وعن منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بسم الله مقعي وفردوس حرس حبدو كسعة فصل كويت سوناد ما أنت ماشان حكوت التماية فصل كشناد فصل كورسو وحال تاجر سنة فصل كورس كل وعن بالعلم سوف أعود أبني بلدتي شارك أخاك الأجر في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم بسم الله مقعي ومقال عبد الرحمن صلاة وكسعة فصل كفنفر وحال كان كتر تماية كورسي شناد عنو اسكتون عد كان حاسين كورسو قول وعن وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي بسم الله الله سبحانه وتعالى ما تكله قيبي دحتالك هيا halkaasna waxaan usii gudbaynaa qaybihii kale ee tartanka saakan waxaa lagu bilaabay fasalka koorso
ayaana arday soo dirsanaya lambarkasta uu qabta insha allah. إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جود يجود الله بالإنعام جود يجود الله بالإنعام. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. الله سبحانه وتعالى mahad iska leh taakay subaxnimo tartankii inoo bilowday gabagabadiisii aan taagan ahay. insha allah waxaan baahin doonaa dhibcaha labada fasal saakay tartamay ee kala keensadeen fasalka koorso iyo fasalka shanaad. haddaan ku horeeyo fasalka koorso, qaybihii hore waxaa la weydiiyey 4 su'aal la weydiiyey, 4 su'aal la weydiiyey 2 ka mid ay saxeen, 2 ka midna waa qaldeen. 4 dhibcood halkaas ku haystaan. qaybtii dambe 3 su'aal la weydiiyey, 3 su'aal la weydiiyey 2 ka mid ay saxeen, 1 ka mid way qaldeen. 4 ay meesha ku haystaan. taasoo ka dhigan wadarta guud ee dhibcaha fasalka koorso ay haystaan oo 8 dhibcood. halka dhigooda fasalka shanaad ayagana la weydiiyey qaybta hore 4 su'aal, 4 su'aal la weydiiyey 3 ka mid ay saxeen, 1 ka mid ay qaldeen. dhibco qaybta hore waxay ku haystaan 6 dhibcood. qaybta dambe 3 su'aal la weydiiyey, 2 su'aal ay saxeen, 1 ka mid ay qaldeen. meeshaasna waxay ku haystaan 4 dhibcood. taasoo ka dhigan wadarta guud dhibcaha fasalka shanaad ee haystaanna ay tahay 10 dhibcood. maantana guushu waxay raacday fasalka shanaad guul wacan hambalyo insha allah. insha allah ustaad Abubakar ayaan ugu baraarujin doono fasaladii soo baxay iyo kuwa harayba iyo kuwa arbacada soo socoto tartami doona haduu la raado insha allah. bismillah alxamdulillahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliina sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd. maanta waxaan rabaa inaa idin soo gudbiyo dhibcaha ay kala keensadeen fasalada iyo kuwa badiyey iyo kuwa harayba. fasalka 8aad ee wuxuu wataa 14 dhibcood badisum wuu badiyey. fasalka 8aad b wuxuu wataa 10 dhibcood wuu badiyey asigan. fasalka 9aad wuxuu wataa 12 dhibcood wuu haray. fasalka 12aad wuxuu wataa 14 dhibcood wuu badiyey. fasalka 6aad wuxuu wataa 12 dhibcood wuu haray. fasalka 7aad wuxuu wataa 38 dhibcood wuu haray. laa ba'as. fasalka 11aad wuxuu wataa 8 dhibcood wuu haray. fasalka 10aad wuxuu wataa 40 dhibcood wuu badiyey. fasalka 5aad wuxuu wataa 10 dhibcood wuu badiyey. fasalka koorso wuxuu wataa 8 dhibcood wuu haray. fasalada soo baxeen waa fasalka 8aad ee, fasalka 8aad b, fasalka 12aad, fasalka 10aad iyo fasalka 5aad. kadib 5 fasal ee soo baxa waxaa lagu dari doonaa fasalkii fadhiyey sida sanadkan noqdeen 3aad iyo 4aad. 6 fasal waxay isku arkayaan 2-2 fasalada soo baxay iyo sida ay isugu aadeen. 6 tartamaysa waxay kala yihiin fasalka 8aad ee iyo fasalka 10aad. taariikhdana waxay ku beegan tahay 16 bisha 2aad 2022. fasalka 8aad b iyo fasalka 12aad taariikhdana waxay ku beegan tahay 23 bisha 2aad 2022. fasalka 5aad iyo fasalka 4aad taariikhdana waxay ku beegan tahay 2 bisha 3aad 2022. kadib 3 fasal ee soo baxa kii ugu dhib badnaada dhammaad final buu fadhiisanayaa. 2 fasal ee kale way tartamayaan, kii la reebana wuxuu geli doonaa 3aad. 2 kale final bay ku kala tartamayaan insha allah. bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin. allah subxaana watacaala mahad iska leh. barnaamijkeenii ee tartanka saaka subaxnimo inoo bilowday halkaas ayuu mataqaanaa gabagabadiisii noogu eg yahay. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. إني أطالب عطفكم وحنانكم جود يجود الله بالإنعام جود يجود الله بالإنعام. أنا طالب
بطالب أمضي فمن منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآم